بسم الله الرحمن الرحيم. maanta ay tahay taariikhda 15 bishii 6 2020 waxaan galnay step 3 aan maleynaa xaafadii wadadii ma sha Allah waa sameynay kullee imtixaankii boqolkiiba boqol ma keeni karno laakiin intii tabarteena awoodeen ay gaarsiisantaa oo Ilaahay noogu talagalay alxamdulillah Ilaahay waa noo fududeeyay maanta koowaad waxaa iskale Ilaahay talabaad maamulka anaga naga sareeyay odayaashii xaafadii saraakiishii bariga oo nagu dhiirigeliyo hawsha inaan qabano maadaama xaafadee tahay asal inaan hawshaan noo direen ayna ka gudoomeen dhamaan odayaashii xaafadda hadda degan oo ku nool ayakan waa isxilqaameen oo shaqo fiican ay qabteen ma sha Allah Ilaahay waa noo fududeeyay meeshan fiican meel ka fiican oo naga siiyay alxamdulillah hawsha loo kala fadhiisan rag iyo dumarba oday ciroole dhalinyaro culumadii masjidka dhamaantood qoladii nabadgelyada u qaabilsaneed dhamaantood way ka shaqeeyeen alxamdulillah waxaan la soo koobi karin aad u qurux badan ay qabteen indhihiina aadi macallin ah sidee shalay ayaamahan iyo ayaantii roobka u da'ay sidee ahayd iyo maanta wax fiican bay qabteen kulli ana ka dhihmeen boqolkiiba boqol laakiin dadaal waa la suubiyay alxamdulillah insha Allah hadii Ilaahay raado wadadan ayaamo iyo sanooyin waan leenahay waa lagu badbaadaya oo insha Allah sawiir loo sameeyay dartood waa lagu badbaadaya oo adeegii xaafadda iyo intii kala darteeda loo sameeyay si adeegyada ay u fududeyso wadadan halboola oo xaafadii marka intii ka qayb qaadatay intii kala boodgelisay intii fikirkeeda lahayd ayaan halkaan ugu mahad celiheena alxamdulillah Ilaaha mahad leh Ilaaha dadka kaamil ka dhigo ilaa hadda oo saacad ay tahay casr la adimaayo way socotaa hawshii wili odayaashu waa soo taagihiin in salaad iyo laga qado doonto ma laga quraac doonto inta kala dhan hawshii way soo taagantaa soo jeedaan cali siid waa u jeedaan wili agaftii محمد فقي وجدين wili hooshii marka yani soo gaagaabayaan rabaa midihii kalena waa kuwaan inuu buko waa ninkaan bukoyara Allah bukoyare bukoyara waa ninkaan inta la barto ujeedaan إلى الحمد لله إلها فوزي وحنا إلها فوزي مفروض اسمان مركا عقتنا فرواي صوته مركي لا سو ديران مسجدان او كله إن يرو كوبن إن سو ديرنا يعني كل شيء odayaashu wili waa taagan yihiin حاضر واي واسقو kala harin buule iyo teamkiisa oo u jeeda xagee joogan geeskoosiisa fadhiyaan qoladii amniga injineer Xuseen odayaashina u jeedaan oo malaha wili ilaa hadda waa soo taagan siisaaki ilaa hadda waa soo taagan yihiin hawshii looma sidaan igu sheeg looma kala harin injineer Xuseen taliyashiina waa kana odageena injineer buule waa kana xaajigi dhamaan xaaji waa salaaminay
ساعة وصل مجرى إن شاء الله gabagabadiina aan ku jirnaa intii kalena waa taas waa sii dhammaystirnay waddadii intaa caradan haasan waxaa ku reeba masaajidka waxaan ugu talagalnay inay difaac u noqoto maadaama roobabka Soomaaliya iska yihiin mid soo laalaabta alxamdulillaah marka sidaas awgeed mustaqbalka haddii aan maarmayno waxaa fikir isla qaadanay in dhulkan biyaha soo qaadayo inaan hoos u dejino oo dhulka gaarsiino si masaajidka hadduu roob weyn imaado meesha intay qodo u baabi'inin oo hoos aan geeno tubooyinkaaniiti saas aan u fikiray aniga waddadii waatana iyadoo isku xiran alxamdulilah maanta intaana kusoo gabagabeehaynaa sida aan ii sheegay macallimiintii dugsiga xataa waa joogeen howl way ka qabteen maamulkii masaajidka sidaas oo kale ayakana howsha dhinacay ka wadeen Sheekh Cumar waa ujeediin macallin Cismaan waa ujeediin dhammaantood waxa waaye howshaan looma kala harin yaa waa kuwan macallin Cismaan iyo Sheekh Cumarba waa taagin si saakila hadda waa soo taagan yihiin howshaan nin loo saani sheegay looma kala harin waa kana macallin Cumar iyo حاجي وسلامين ان شاء الله حاجي وام سلامين السلام عليكم ورحمه الله ماشي waa ujeeda odayaasha waa taagan yihiin hawsha waa socotaa shaqada waa socotaa ma sha Allah misaayid kortiisa waa ujeeda banaanka ma sha Allah diji waa ku salaamayna khayr Allah ku sii idinka mudan marka intaan waa ugu filantaa u maleena marka waxaan idin leeyahay dhamaantiin in akhir barbaartaan nolol wanaagsan saacad idinkii familiyadiin meel ka soo caalamka ka sugantiin waxaan leenahay khayr idin dhaafno calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh